بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دمان وسلام يا برشد الصومالية ميل آد كسوغنتين با وعبد السلام جنتلمان وعاو كوها الليا مقعي سقاركا إيو أفكي سقاركا طبعا iyo wadaniyada Soomaaliyeed caawa dabcan midnimo qaran iyo hadaad iga barateen inaan ahdo Cabdisalaan Gentleman oo ka tirsan midnimo qaran caawa midnimo qaran kuma hadlayo waxaan ku hadlayaa afkayga gaarka wadani Soomaaliyeed Soomaalinimo iyo Soomaali horta sideen la wada socono Soomaaliyeed guumaysta inaga dhigay 5 qaybood oo xiddigtan yar calan kale la yiraahdo 5 qaybood guumaysta inoo yeelay laakiin dabcan uma jirto guumaystaha ka hor jira baynu ahay wayeelkadii qofka Soomaaliga ay ku intahay reer Hibil iyo qole Hibil iyo reer Qansax iyo reer Qurac iyo waxa soo dhan caawa la hadlimaayo waxaan ku hadlayaa afka Soomaaliyeed iyo Soomaali baan ahay waxaan dul istaagi doonaa caawa dhowr qodob walaalayaal dhamaantiin aad baan idin salaamayaa dabcan inkastoo caawa runtii والله إن أنا بين إذن شيئا سومالي دمانتين ولا هذا سود هذا كليب كان نشر قرية عاو ولي وركاس طبعا أو سجن ما هينو وأنا ندل استاجدون عارف ما فرق بدن لكن المركز يقول نحن أنت بنيت بان إذن شيئا أنت اللي كاني تقالوا يسومرين سوماليات وانكجا حي برعو صدوقه وانكجا حي دير دور شروان قحي أو دجالة اللي جاي سومالي ده اللي كده عيد دور شروان كقحي لكن واحد يجو أرجو يعيل بدنيت سومالي ربنا دي شجية حتى حقيقة ما دي شجية ومسؤول تهريبي وبطل شاهم وين مذوع حتى وصاقة واحد يجو أرجو يعيل بدنيت أو يجو كل في حتى أنا السوشيال ميديا صاقة وهالكلام ما تذكرها مالين كان مقلي ولي بواحد هاد مخرب وركاس صوص سجن رج حسبك كل مياه مدح ديسة كوحدة حسبك أول ما تورنا يا هرجيسة كتلسة أي يسوق قد بيوم ولي بقرابنا أنا أمني واي ودني كأمني واي أصلا ومعارض كيئيو وحابة نوعاس وحياهي مغارب تان مغلي أمحارة دكتي بربرة برسنتج كله والله وبالله والله الصوماليين أنا بين ذي الشيء ما أنت سيجوم رجبنا وايو وربربرة وحيا هيد ده واحد طبعا سببي وكيلة محارة بربرة وحيا هيد ماشي أنه ما أنت صومالي وابي البحبة إنه ما هالكلام ما أنت مرة كل يدنا أو ذيال أينو إمك نحن primitive يو ده أينو يسنو لكن إنك مسكح بنا وإنك رجني بنا إنك حني بنا أي ده بربرة وح قول لجوك هذا كوين إنجليز كي عذاب يكلها أمحار مدو أيا بربرة percentage كويس ونصيب درة ووح نصيب درة الصومالي أردن كدعده إن بدل ما لك قلني Soomaali waa laga garaysan waayay dabcan war berber war maamulka Hargeysa waa amxaaro waa wakiilada amxaarada u shaqeeyaan maamulka Garowe waa wakiilada amxaarada u shaqeeyaan sida waxa maamul jiro oo dhan Sharif Sakiinow Gaasow anigu Siilaanyow ku isku wada dar wuxuu amxaare u shaqeeyaan haddaba walaalayaal mid baan intaas oo dhan aan oran jiray warkuwaas waa maamul goboleedo awoodi oo xamal laakiin samaaca wararka soo dhacay aan maqlayn waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliya waxba hadal ka beerbeermin arrinka Cabdikariin Sheekh Muuse dawladdu warkeeda hadii cadeyn weydo war cad ay ummadda Soomaaliyeed ay siin weydo de waxay ka mid tahay inuu ha ku biirto maamul goboleedada oo raba amxaarada xukumi jirtay maxay kaga bedelantay Soomaaliyeed maamul goboleedadii oo jirnay amxaarada u shaqeeyaan haday taasuba dhacdaba ilaa caawa muruga jirtay dabcan iyo hebel baa la dhiibay oo la fana waa dul istaagaya
أنا تاجرها كوبادي أنا لفبانة سومالي وحبي أنا كلا قرصن the reason why أنا لفت الرئيس ما هارج قحسنا ما وحويا وشبهات حرني مدونة حتى سليدين أنا لف بأرج قحسان أنا لف وشبهات حرني مدونة قاربا وحي dhahdaan orolof iyaga isbasaasa oo isaaq soo ku war maxaan run isugu sheeglaanay oo miyaanu sileeyaba u shaqeynaa maxarada miyaanu gaas u shaqeyn inta leedin iyaga isbasaasa iyaga waxan oo Soomaali oo dhan ba isbasaastee ninka dhiibaya Hargeysa ka dhiibaya miyaanu Soomaali ahayn ya Soomaalida kala qaalqaaday oo qabiilo kala sameeyay gumaysta inoo yimi gumaysta barna yiri Faransiis baatino Djibouti baad ku darteen Soomaali ogaadeenaya ama Soomaali galbeedna war walaaladan ogaadeenaya walaalidu kuna ogaadeenayadan dabcan ogaadeenaya waa reference waa jabhada waxay ku diwaan gashan tahay ee ay United Nations kaga diwaan gashan tahay Cabdirasaaq Khawayre aad baan ku salaamayaa mujaahid weyn war dawladda Soomaaliyeed maanta haday iscadeen weydo waxaan leenahay waxay noqonaysaa inaanu hami jabno mustaqbal iyo rajaan ka suweynaa dadka container-ka lagu xareeyay Hargeysa ayaanu ka hadlaynaa afar tag saacadood lahayn Soomaali diid ma aha koox maafiya ba afduubatay rajada qura waxaan ka qabnay Muqdisho haday maanta Muqdishona bahala galay noqoto meel amxaarada dima tagayno dabcan runbaan idin sheegaano Cabdisalaam maanta burco ma tagayo iyo Hargeysaba kama baqanayo habar jeclay Siilaaniya kooxdan maafiyada meesha haysta waxaan u tagaynaa hooyadii ugu tagi kareen run baan idin sheegay waa maxar oo aan halka u tagi waay waa maxar ma aha qabiil iyo isaaq iyo waxan waligiin baniic ku sheekeeya daarood hawiye what the hell waxa ka hadla Soomaaliya maanta oo dhan waxa ku mashquulsanaado waxa isku haysta iyo hebel baa xil waayay war koonfuray walaal wax yar oo dhow isku haysataan waxa isku haysataan hebel baa ra'iisul wasaare la siin waayay kana waxa la si war anaga dadkayga baa maxaare caadi laga dhigayaa oo Soomaalinimadii ba laga kaxaynaya idinkaana loo jibiyo Soomaaliyeed ma inuu maanta koox maafiya Faysal Cali Waraabe iyo niic midana haysato halka ay yiraahdaan afduub Hargeysa iyo Burco idinkaana loo jibiyay waayo hadaad idinku Israaciil haydeen oo aad dawladnimada la shaqeyn lahaydeen iyo maalinba madaxda timaada okay caaw waxaan kaloo halkan fariin u marinaya farmaajo yiraahdaan farmaajo taageerta sida wallahi hadii farmaajo khayr inaan Soomaali waanahay farmaajo khayr shalay bay yimaadeen Soomaalidu ka horbay jirtay gumeystii ka horbay jireen dadka maangaabka waxa ku sheekeeyay yiraahda Somaliland Soomaali galbeed Soomaali sidan war 1804 kii waan ku soo celeynaa Soomaalidu ka horbay jirtay farmaajo khayrna shalay bay yimaadeen Soomaali baa dooratay Soomaalinimaduna wax jiro waa ka calankeega oo kaasaan kuleel baa jiro waa kaasaan waligiiba sidinayna buluuga kaasa ayaa anaga noocaan ahaa kaasaan Hargeysa Soomaali dhan ka taagan Soomaalinimada uga tagimeeno laakiin soo wax taageeraayo naga sugayeen ma jirto mana taageeri doono dabcan qaar bay igu yiraahdaan waxaad ka soo horjeedi jirtay Xasan Sheekh Maxamuud waa run waan ka soo horjeedi jiray sababtu maxay ahayd dekedeedii berbera ama dekedii Soomaaliyeed yaan oran dekedeedii berbera soo Xasan Sheekh Maxamuud Muuse xin am xarada 19% nagura maanta le dekedii berbera soo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke lam war maafiyada Hargeysa maafiyada koonfur baan naga daran maafiyada Hargeysa meega wax badan bana yeelayba kuwan koonfurta wax kasta baan naga daranba because dekedan berbera inay amxaar ay percentage ku yeeshaan Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxay farmaajana haduu maanta haliyay Soomaaliyeed oo amxaar u dhiibo wallahi waa maalinta halkiiba maraysaa oo maamul goboleedadu ay mari jireen iyo kooxaha maafiyada dawlad yar oo baqanayso ku wareegaysa sidan iyo sidan Soomaalida koonfurna waxa la wax badan isku ma haysataan wala xalin karaa reer hebel baa halkan tagay reer hebel war dad baanu rajo Soomaaliyeed baa halka ay Soomaalidu lahaayeen ilaa xildhibaanadii weydinkii magaleeyay Siciid Cilmi Rooble oo lahaa koonfur hilaac baa bilikeeydi hilaaci maanta hadaad baqtiisaan oo aanan Muqdisho lahayn waxa weeyaan waa meeshii quraahayda maxaara kaga badbaadaysan ayaa maxaaro maanta ku qabqabanayso
aniga iyo cabdikariin ninka la yidhaahdaa isku xaalad baan ku jirnaa qof kasta oo amxaare ka soo horjeedana saaxiib baan waana taageersanay taageero buuxdo oo boqolkiiba boqol baan laf taageersanay soomaaliya waxba urmaysaan wallahi haddaan oon laf jir lahayn mar hore hargeysa la qaadan lahaa weligood baa la yidhahda dee oon laf lacag baa lagula dagaalamaya amxaaraa la dagaalamaysa oo soomaali baa la dagaalamaysa oo cid kastaaba oo la dagaalamaysa waa taa hargeysa lagu dhex qabqabanayo garowa lagu dhex qabanayo marka la leeyahay oo nimanka yaa taageera soo inaga nagu qabyaalada isku wada haysanay madaxa la isugu geliyey aanu ka dhammaan laanahay gebigeenuba reer hebel xitaa kuwii qurbaa joogay yaa xayawaanka ay noqdeen Soomaaliya waxba ku qaadan maysaan qurbahana timaadeen wariya qabyaalad ka yaqaan Soomaali qurmuun baa tahay quxunti baa tahay ma odhanaysid Soomaali baan ahay waxaad ku wareegaysaa inta marba farooday oo maalayacni oo reerkiina dhex fadhiisanaysaa daarood baan ahay hawiyaan ahay isaaq full of nonsense baa tahay xayawaan baa tahay Soomaali baa tahay qushaash baa tahay refugee baa tahay war waxaa tahayba la garan maayaba dunidiiba magacba kuma lihidba ma soo oranaysaa reer hebelka wax ku qab wallahi oo bilaahi oo tole hargeysa waa la haystaa amxaar baa haysta oo garow waa la haystaa oo galmudug waa la haystaa haddii maanta taasuna inoogu biirto dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hal gembeed la gudboon haddii kale wadadii Falastiin ka baxday baynu ka boodinaa halkaa Falastiin baynu noqonaynaa iyo Falastiintii oo dhulkoodii laga qaatay oo waliba innaga isugu wacan inaanu Falastiin noqono waayo markaynu ku meeraalaysanay reer hebelow waa run baan idin sheegayaa waan idinku soo celceliyaa 24 saacadood maxaan ugala jeedaa bal inay qaar wuxuun isbedelaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi bal halkaa ka soo hadlaanaysaa kuwa niicda ku wareegay cabsanaan booremu ka soo jeedaa maala yacniga tee anigu lama sheekaystee war wallaahi kuwa maanta meesha hargeysa horboodaya le madaxda iska dhigay tuugtu dhashaya wallaahi inaan cidina iga xidin waxaan uga beeray waa maaha wada dalow bay naga tuurayaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii maanta farmaajo khayrana dalowga kiisii naga tuuraan rajaa ka sugina bal ila wadaaga walaalayaal qisada imka hargeysa ka dhacday 28 bisha isniintii maanta salaasay ahayd shalay baa ahayd isniintii saddex inan oo walaala waa ciidanka iyaguna amxaarada u shaqeeyay hargeysa joogay ciyaalka loogu sheekeeyay iyo wax magaratada RRU baa la yiraahdaa argagixisay la dagaalamaan argagixisadeedii talabaad bilaahi baan idinku dhaarshay marka la leeyahay Faysal Cali Waraabe iyo Musabbixi war qaar bay wada shakhsi wada weeraraysa war shakhsi ma weeraray ruuta ka hadlayay markay leeyihiin cadow baynu leenahay cadowba yaynu cadow ma dadka iyaguba lafahoodii u yaaban ee al-shabaab ee reer ee qabiil ee dhibaatada ku dhacday ee Soomaaliyeed ee walaaladayba xoraya niyow cadowgeena waa kelmadaha walaal qalbigu ka damqanay yaa kugu cadowa ma dad iyaguba yaaban oo nabad u baahan boodhanay cadowgeenu waa cadowga Soomaaliyeed cadowgeenu oo qisado nin dano oo la ku jiro umada waxa saan u qabanaynaa ma oranayaan waxay ku oranayaan cadowgeen waa amxaaro iyagu laakiin cadowgay sheegayaan waa Soomaaliday run baan idin sheegayaa waliba anigu caawa waxaan la hadlayaa kooxahan xaggan ka soo jeeda weligiin bay iskala qaadqaada daarood baan nahay hawiye war maxaan qabiilkan afkaan ugu dhufanayna war nimankan maafiyada ay waqooyi haystaa idinma kala jeclaa waxay oranayaan waqooyi koonfur waa cadowgeenu waa cadowga oo halkaas say u lahaayeen kuwan horta ugu record gareynayeen cadowgiinu waa koonfuraya amxaar qabsatay siro fudud oo sahlanba ila xaggaas u jeediyeen oo dadkiiba walaaladoodii Soomaaliyeed bay waxay ku dhahdeen waa cadowgiinu marka baliya cadowga ma ninka isaguba dhibaataysan cirraha ule maxaa cirrowga hadweede cirro war la mid walaal waa midra Musabbixi waxa saakuweyn hooyo jecel buu soo qortay Francisco jooga waa qoxunti marar reer Djibouti iska dhiga war caawa hida road aduguna naga bax saaxiib waan ku fahmaynaa marna reer Djibouti baasaboorka Djibouti badan ku soo dhooftay xayawaan misaad raahda Somaliland baan ka yimi sidan Paris buu dowrsadaa walaalo Djiboutiyan buu iska soo dhigaa marba anu Soomaali baan saaxiib Soomaalinimadeeda waan ku dhimanayaa waan jecelahay ilaa weligii Soomaali baan ahaa silaayayga ma saari karo Musabbixinayga ma saari karo xayawaan baa tahay cawaane Djiboutiyan baa Djibouti ba gumeystaa naga jiray baasaboorkoodu soo taamsaad
maalin kastaba niic noola timaadaa iyo muuse bixi ka hadal iyo muuse waa beertii cismaan dacaas dadkaas iyo waa tuug dhalay konton bolood buu hargeysa ku leeyahay maalintii la soo galayna bolood buu lahaa silaaya kadaalik war nimankan waa nimankii soomaaliya burburiyey ee dowladdina maxay noogu bedeleen waxay noogu bedeleen inaan maxaarna qabsado oo aan maxaaran meesha ugu nimaadno waa kuwa maanta aan macal kuwa leenahay wallahi hadday arrin cad ka keeni waayaan arrinkaa ininkaa mujaahidka laydin sheegaya run baan idin sheegaya soomaaliya ma aha isnin ma aha UNC soomaali bay isleynayeen ma aha waxaan oo dhan ma aha hogaamiye kooxeedadii ma aha waxa weeyaan nimanka maxaarada la dagaalamaya kaa maanta lahayaa mujaahida because gurigiisii hooygiisii goobtiisii baa loogu yimi wallahi waa xaqudirar kaasaa mujaahida anugu saacaddaa laga bilaabo oona laf baabanahay run baan idin sheegayaa bal annaga cirka gumbeledahana lagaga soo rido oona laf ha noolaato waaba kuwana difaacaba ee maxaaradaba naga difaacaba marka walaalayaal qisada hargeysa ka dhacday baan idin sheegayaa war 3 nin oo walaala oo dhalinyaraa ayaa isniintii gurigoodii ugu soo daateen ciidanka argixisada afka soo duubtay hargeysa ka shaqeeya okay 3 nin magacoodii baan idin sheegaya mid waxa la yiraahdaa kow deeq maxamed maxamuud waan isdhegeysan doonaa macaal sirdoonkoodii tuugta ahaa maxaarada dadka u dhiibi jiray halkan ay ga daawanayaan waan istaawanaa ma waxaad mooysaa macaal facebookyada la socdaan oo wallahi wax kasta way la socdaan mid waxa la yiraahdaa deeq maxamed maxamuud ka labaadna waxa la yiraahdaa mawlid maxamed maxamuud midna waxa la yiraahdaa asad maxamed maxamuud waa 3 nin oo walaala 3 nin waxay deganaayeen degmada la yiraahdo axmed dagax ee hargeysa mid kamida xaafadda la yiraahdo siinay ayuu wuxuu ku haystay dukaan habeenkii isniinta labadii habeenimo ayaa loo soo dhacay ciidan macaal wajigay soo duubanayaan eerri bay ku sheegaano wallahi aan xaarada xukuntood tagray baa xukuma baan kuuriyo waliba muslim iska dhigo samoora la yiraahdo okay inta halkii loogu yimi labadii habeenimo oo argagixiso lagu sameeyay ayaa xabsiga la geeyay bal ilaah baan idinku dhaarshay miyaanay subaxnimadiiba marka waagu bariyo haddaanay terroriis ahayn ciidanka arariyo soomay ahayn inay subaxnimadaba ilaan way hurdaano way ogyihiin gurigoodu waa siinay oo way la socdaanay inay kadib intay soo istaagaan dhahdaan soo baxo halaa ka kaxaystaan soo intaa may ahayn waxay yidhaahdaan ma argagixisay ahayn namada halkaas ka hurdee weliba mid okay kiiskii markii la daba galay iminka waxay ku jiraan xabsiga weyn bay ku jiraan hargeysa waxa lagu eedeeyey mid baa muqdisho tegey muqdisho hadduu tago muqdisho maana caasimadda soomaaliya ahayn muxuu sameeyey kiis kaleba laguma haysto waa anigoo cabdisalaan oo iminka burcaama hargeysa taga oo labada habeenimo gurigeega lagu soo daato anigoo muqdisho soo maray tusaale ahaan oo la yidhaahdo cabdisalaanow mustafa iyo kaa iminka hargeysa joogaan wallahanay mustafa iyo hooyadaya waxaba aarayu dusha kaga soo daato la yidhaahdo mustafa cabdisalaan baa muqdisho soo maray ma riisan baa waa argagixiso walaalayaal kooxahaasa anaga haddaba hargeysa iyo burco amxaarada u shaqeeyo toos amxaarada uga markaata bal inaanay istaamin baan idin sheegayaa waxaan hargeysa iyo burco dadka ka dhiibay meesha la yidhaahdo garowe 2008 qisada ka dhacday wallahi waad ooyeysan haddaan idin sheego ninkii la odhan jiray farola markaa madaxweyne ka ahaa maamulka allahu mustacaan maamulkan dee war anigu maamulba ma odhanaye meesha la yidhaahdo garowe laba inan oo iyaguna iska masaakiina ayaa waxay ku qabteen garowe xabsi baa la dhigay weliba laba nin oo ilmaadeera iyo ilmaadeer bay ahaan way iska shaqaysanayeen masaakiin bay ahaan niman dee dabcan ogaadeen oo soomaaliyeed xabsi baa la geliyey faro laa geliyey xabsiga markuu geliyey wuxuu u diiday xitaa inay musqusha galaan halkaa ay fadhiyaan buu ku yidhi isku saxarooda oo ku kaajaba nimankiiba dirxibaa galayba warye dirxi markuu galay waxa u yimi odayaal baa u yimi meesha ganacsadayaal malaa ay isku qabiil yihiin oo ogaadeena farolay ku dhahan war nimanka yaree masaakiinta kuu xidhan warniyo way macaal dirxigu galay ee suuligii macaal loo diiday aad baan kuu salaamayaa dabalaxaabta aad baan kuu salaamayaa shukran abta caawa amxaarana ka hadlaya anugu ma kala jeclay abta waxa laala wixii amxaarada taageera iyo waxaasoo dhan
caawa abti aniga waxaad igu ogaanaysaa onolaf baan ahay abti onolaf argagixisamaha soomaaliya onolaf baa madaxa laydiin geliyo waa ogaadeen iyo waa waxna war waxaas waa niico waxa amxaaradu inaga faa'iidaystay onolaf waa jabhad u dagaalamaysa waa jabhad ee xoreyn u dagaalamaysa oo xornimo u dagaalamayaan ma aha usoo kuwa UN-ka idinla USA bay joogaan London bay joogaan Kenya joogaan haddii laydinku dhahdo iyagaa isbasaasayoo isjebinayane dee Soomaali dhan bay soo basaasayso taa Soomaali bay kala mid yihiin waa isku wada mid sonaga annagaba qaar amxaarada oo shaqeynayaan sonaga kuwanaanu ka hadlayne aanu ku leenahay labadii habeenimo guriga ay ugu daateen nimanka lahda araariyo meena amxaaro shaqeynayn meena isaaq ahayno niman arabaa waliba ahayno siinay baa loogu degay Axmed Dagax kan uu soo dirayana waa isla reer ee amxaarka u shaqeynay labadii habeenimo sugi waayay inamada yar inay toosaan ma wari leeyahay mid baa Muqdisho soo maray marka bal sheekada faroolaan idin sheegaya laba nin bay ahayd garowa lagu xidhay musqushii xitaa waa loo diiday in halka ku saxaroodaan ku kaacaan faroolaan niman u yimaadeen dabcan war anagu caawa cidna ma joojiye niman ogaadeen baa u yimi kaduna xidhan warniyow nimankan yaree masaakiinta meesha ku dhiban meesha iska siidaa wuxuu yiri haddaad horteeda ka dhaqaaq weydaan wallahi inay meesha ku jiraan aan idin keenin gari haddaad iga hor dhaqaaq weydaan masuuliba wuxuu ugu jawaab ogaadeenow waxaad ku noqoteen geeska ama Soomaaliya qori dab labaad kula dhex wareegaysan war ma nimanka xornimada u dagaalamaya macalanaga amxaarada naga hor taagan baa qori dab la wareegaya halka yaa taageeraba wallahi waa nimanka Soomaaliya u geesan fulifule dhibana bayna Soomaaliya rumaan idin sheegaya qaar baa aniga intee la soo hadlaan bay koodhan war ma ilaahay irsaaqada yahay baa masoo koodhan Cabdisalaano Faransiiska way kula joogaan amxaarada sida safaarada caawa guriga ka soo galaan bal amxaarada sheegaysan niclayaasha halkan hadhow aniga meelaha iga soo garaan soo amxaaradu qaar kale bal caalam amxaarada ka hadla amxaartu waa gumaystayaasha geeska Afrika ugu xun waxa weeyaan dulli naqabsaday waan ka guuleysan doonaa insha Allah taala okay odayaashii markay farooleys kaga tageen waxay u tageen ninkii markaa dee kuwa xukuumadda ee amxaarada xukuumee ninka la yiraahdo ka Hargeysa oo fadhiyay iyo kan de Garowe oo fadhiyay marka Garowe waxa uu fadhi jiray nin la oran jiray Xayla Afdhuub bay odayaashu u tageen gaarkiisii bay markaa ku yiraahdeen Xaylaan doonina gaarkii mid kamid ah securitykiisii baa Xayla u yimi dabeedna Xayla ku yiri isay ku odayaal ogaadeen baa ku doonaya xag hore ku taagan masuul war ma aniga ahaa ma odayaal ogaadeen war mala ma aha ogaadeen baa aniga doonaya anigoo Garowe joogay Garowe isaga xukumay midna Hargeysa xukumo wala anigu Garowe duulaan ku meeyay Hargeysa ka Hargeysa jooga baa xukumay tagrayga ay halka fadhiya baa xukumay mid baa dekada haysta miiraal hada xitaa dekada berberaba gebigeedaba kadibna war macaankaas ahaa way u galeenba qisadii baa uga warramay qisadii markay uga sheekeeyeen buu yiri okay telefoon ma markaa u yeelan laan leena iska yara fadhiya farolabo laan leen ka garaa suguudi nimanka marata iska siidaa nimanka yaree masaakiinta meesha ku xidhan haye waa dilam xarada wada xukunteen odayaashii ku yiri ordo iska taga iyagoo qubaystay baa u tagi doontaan haddaan been sheegayo de raggii ay soo hayaan waan iskaraynaa war anagu aan laf baanay waa la rumayso ona la fiinniiba ku wareegsanayso wallahi bilaa talay marka Soomaali oo dhan waxba noqoto on lafno waxbay noqonaysaa ko NFD jooga waxbay noqonayaan baleek amxaarkii Xayla Afdhuub farole ka sii daayay nimankii yaraa masaakiinta haaye laga soo aftoobay Garowe waxaan leeyahay Garowe lagu xidhay ee walaaladooda sidoo taga marka de ka Hargeysa wal marka maxaan noo dhibaynin kan Hargeysa wanaagno iyaga haystaba kan Garowe iyaga haysta oo de waa amxaara toosaba meega awood oo walaalayaal been idin sheegi maayo maalintii ugu dambeysay ee maamulka Hargeysa ay ciidanka waxay ku sheegaan ay ku tabo sanad guroodii ku qabanayeen meesha la yiraahdo Dararweyne wallahi Cornel Ethiopian oo amxaaraba ayaa fadhiyay been idin sheegi maayo Cali Khaliif kaamka dadka qaar leeyahay Cali Khaliif iyo waxa heshiis Soomaaliland amxaara heshiisiinaysa amxaarada Cali Khaliif la soo hadasho ku tiri kuwan taageersanahay kuwan taageer warwaanay haysta Soomaali marka dawladeena waxa leenahay hadda arrinka ka soo jawaabi weydaan ilaa idinka jawaabin ka fadhinaa ama uu ninkaas laba midun baad naga badbaadaysan ninkaas oo dabcan ona lafta walaal qudeeda de ona la forto walaal ma aha inkastoo aan filaynin ninka la yiraahdo qalbi dhagax nin isu dhiibaya inaanu ahayn amxaaro way dhacdaa inay mararka qaar on la ayagu iskooda hadal la furaan dawladda Itoobiya
laakiin hadday dhacdo waxaan leeyahay wallahi rajadii Soomaaliyeed way dhimatay mana dhiman doonto laakiin rajadu ma dhimatay Soomaalinimadu ma dhimanayso Soomaaliyay weligan way noolaanayna insha Allah taala amxaaradana marka dambe dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa waraynu dagaalano maxaa niyo walaal maxaa si kuwan la yiraahdo inagu min hindiyaar gixisay wadankeena xoreysanayna kuwan la yiraahdo ISIS iyo wax noocaas iyo al-Shabaab bay iyagu waddo baynu ugu hayaan kuwa ma noqonayno war wadankeena aynu amxaarada ku xoreysano oo wadankeena ku dagaalano taasaa dhaba qabiilneen meel iska dhigno waayo nin kasto guumaysta diiday hadii amxaarada nilo dhiibo qabiil waxbayna ma tarayo kuma dabcan kama hordhici doono sida sheegayaan laakiin la maanta oo dhan media ila caawa kama seexan doono xukuumaddu ha nooga soo jawaabto haddaanu nahay bulshada Soomaaliyeed anu Soomaali oo dhan waan jecelahay waa dadkaygii Soomaali waa isku wada mid waa run wala sharaf mujaahid dhiibay ma jiro ninkaas mujaahid buu ahaa waxay noqonaysaa meesha ka barbaga dee ama dabcan dawladdu ha noo soo cadayso haddii kalena wadadii bay qaadi doonaan maamul goboleedyada oo hore maamul goboleedna waxba kama duwanaan doontaan maamulka Hargeysa maamul goboleedka iyo ka la yiraahdo Garowe iyo idinku isku mid baa noqon doontaan hadaa arrinka aad ummadda Soomaaliyeed ka soo aad uga soo jawaabi doontaan oo arrin sax ah aad ku soo hadli doontaan ninka Soomaaliga waa Soomaali meesha doonaba joogo Soomaali baa leh qof leh shir dee oo la fahmo ma aha argagixiso heer caalami baa jira waa jabhad xornimo u daga jabhad xornimo doona weeyaan dunidana laga aqoonsan yahay dawladda Soomaaliya hebel baan la galnay heshiis waxaas ummadda idin kala saarmayso way waxaan ogahay Soomaaliya run idin sheegaya niyaro la yiraahdo Cabdikari waxa la yiraahdaa Cabdicasiis Haarun Xirsi isku qoys baanu nahay xagga kalena habarudaag baanu ka nahay maalintii dhaweed ee lahaa ilaa ninka la yiraahdo Khayr oo maxaabiista soo deynay waan ku faraxsanaa waxaan isla uu ku jiray Cabdicasiis halkan reer Burcaaday ka daawan doonaan waa ninkii Cabdicasiis Haarun Nairobi ka yimi waxa ninka lagu xiray Nairobi baad niman la fasaaxiib ku lahayd Cabdisaabu isri tag meelaha markuu marayay baa la qabtay amxaaradu xamay laawaan walaalayaal horta dadkan ka baqanaya horta Ilaahay ka baqa laakiin amxaaradu sirdoonkoodu meel kasta uu jooga ninka baqa baanay xidhan ninkii yara lama soo deyn marka kuwii maalmo dhawto horta oo Khayr soo deynay ma aha kuwii ku eedeyn jireen ee argagixisay oo laftad masaakiin oo meelaha ka qabsadeen bee qaar baa marka qoranaya dawladda heshiis la galeeno Khayr heshiiskii maxaabiista iyo maxaabiistii bari dhawtay soo daayeen qaar waxay ahaayeen marka hore bay khalad ku qabsadeen ba waan wax kiisana ka galin dhibaatana u geysan laakiin kuwa ay on la fi wax ku soo yeedayaan iyo Ethiopia wax ka sheegtay maba soo daayeen ma Cabdicasiis Haarun soo daayeen wuxuu leeyahay bal kuwaas ka hadlaan kuwa reer Burcaan marka qaar is qabsanay waliba aan isku qabiilka nahay waxa ma sheegay Cabdicasiis Haarun ka hadla inta aniga igu mashquulaysan iyo Cabdisalaam baa waxa yiri nin dhalinyaro ah ahaa waxa iskiisii Nairobi kaga tagay Addis Ababa arrimo dhoof sidoo waru xidhay imika ilaa muddo ku siman 6 sanadood cidna kama hadasho meega maxaa ka hadli kara oo Fataa Baqlayaale Soomaalidu iyagu bay soo xoog weyn ka Soomaaliya waxaan leeyahay insha Allah taala khayr iyo barwaaqo aan rajeynaya xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo Khayrna waxaan ka rajeynaynaa inay war sax ah arrinka ka soo saarto aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin meel joogtaanba wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh